والد السلام عليكم ولي waxaan ku jirnaa mowduuci ahaa toxic parenting waalidnimada qaloocan tarbiyada khaldan korinta ilmaha aad korinayso laakiin aad burburinayso adiga oon ogeyn waayo waxani waa dhaqankaaga shalay waxaan ka soo hadalay waalido marka maxaa la yiraahdaa toxic parenting waalid inaad ku dhex jirto ood ilmahan korinta aad korinayso iyo tarbiyadaadu aanay ahayn mid hab dhaqanka islaamka waafaqsanayd ay ku soo ducayn lahaayeen ee ku horumari lahaayeen adduunka ay ku baraari lahaayeen ku barwaaqoobi lahaayeen laakiin inay tahay mid adiga ku burburinaysa iyagana burburinaysa waan qeexnay shalay astaamaha lagu gartaan sheegnay maanta waalid waxa raba inaan ka hadlo waalidnimada qaloocan tarbiyada khariban korinta aad korinaysa ilmaha ee sumaysan ee toxic parenting ka loo yaqaan saameyn noocee ah ay awlaadda ku keenay shalay waan qeexnay maanta waxaan ka hadlaynaa ilmahan marka ku hoos koraya dhaqanka toxic parenting ka ah tarbiyada qaloocan ee nusalay soo sheegnay sifaadkeeda sifooyin noocee ah ayay ilmahani la soo bixi doonaan maxay la kori doonaan calaamado noocee ah ayaa lagu arki doonaa waayo shalay waxaan ku yidhi laba shayba way burburisaa identitygooda shakhsiyadda meel isu taagi lahaayeen their brain maskaxdooduna way burisaa maanta haddaba waalid aan kula wadaago saamaynta fog ay awlaadaada kuwa aad rabtay inay kuu duceeyaan ay ku yeelan doonto kow Harvard University jaamacadda la yidhaahdo waxyaabaha ay soo sheegtay waxaa ka mid ah waxay tidhi kids carruurta lagu koriyo qaylada joogtada ah carruurta lagu koriyo cuqdada joogtada ah carruurta lagu koriyo dhammaan wixii shalay aan ka soo hadlaynay waxaa lagu arkaa kow low self esteem ilma isquursanaya soo bixi ilma shakhsiyadiisa aan ku kalsoonayn ilma aan waxba qabsan karin ilaahay quraanka wuxuu ku yiri walaqad karramna bani aadamka waan karaamayna karaamadaas uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku beeray ay xaq u leeyihiin ayuu burburiyaa korinta noocaas ee toxic parenting number 2 depression kama baxayo ilmaha depression kana waa naqaanaa carruurta ama dadka inta badan isdilkana wadamadan aan joogno waxaa la yiraahdaa waa the third leading cause of death waa shayga saddexaad ee dadka dhintay ay sababsadaan macnaheedu dadka dhintay waxa ay sababsadaan midka saddexaad weeye midka noocaas ah marka isdilka dadka isdila boqolkiiba 80 waxay lahaayeen depression aan laga daweyn ilmahani marka depression buu la koriyaa u fiirso waalido waxaan oo dhan fidna kale iyo banaanka uga imanayo adiga dhalay ayaa ku beeraya waa khatarta toxic parenting ay leedahay aanu ka digayna depression midda kale waxa weeyaan wax la yiraahdo waxay noqdaan people pleasers ama waxay noqdaan dad mar walba dadka raali geliya oo go'aan qaadan oo shakhsiyada meel isku taagan aan lahayn oo waxa weeyaan aqligooda aan isticmaali karin oo miisaan ay wax ku dheerariyaan aan lahayn bal ka fiirso ilmo wax bartay aad korisay laakiin u noqon dadka inuu raali geliyo oo naftiisa aan la xisaabtami karin oo qayim yeelan karin taasna arintaas ka timaada waxay kale yiraahdaan they will have a hard time to have a relationship waxa dib ku noqon doonta inay xiriir dadka la sameystaan u fiirso gabadhaadu waxaad rabtaa inaan markii la sheekaysanayso waalidow inay garan karto midka guur ka raba ee mustaqbal fiican ka raba ee wadadii xalaasha ka raba iyo midka dhaqan xumo iyo gaagaabsi iyo ceel sugnimo ka raba relationshipka ay gabadhaadu rabtay inay samaysato ma samayn karto maskaxdeedu caadi uma shaqaynayso waa maskax aad burburisay waa sababaha aan arintan uga digayno waxay kaloo sheegaan waxa la yiraahdo jaamacadda isla Stanford University waxay sheegtay waxay yiraahdeen ilmaha lagu koriyo ama ay koriyaan toxic parents waalidnimadoodu ay khaldan tahay waalidiin tarbiyadoodu ay weecsan tahay qaloocan tahay waa toxic parenting waxa lagu yeernay waxa lagu arkaa ilmaha waxa isbedela structure-ka ama qaabka maskaxdooda marka lagu eegay brain scanning waa taqaanaan baalkan dhakhtarka markaad eegto lagugu eegayo scanka marka lagu eego maskaxdooda carruurta qaylada joogtada aad ku korisay carruurta waalido aad ku korisay inaad barbar dhigto kuwa kale hiblaayo kala noqo hebel oo kala noqo carruurta aad u kala eexanayso na hiblaayo joogta adiga ayaa ku guursan aad leedahay carruurta aad leedahay tanaa nacay carruurta aad magacyada ugu yeedhisay sida aad u korisay ee ka aradan naxariis waalidnimo ka aradan jacayl waalidnimo ka aradan dareen waalidnimo maskaxdooda marka lagu eego iskaan laba meelood oo muhiima ayaa waxaa ku dhaca change way isbedelaan midda koowaad waa amygdala bahashadira amygdala waxa weeyaan emotion processing waxa u qaabilsan shucuurtu ilaahay nagu beeray dareenka uu nagu beeray inaad faraxdo inaad maaragtay qiirooto inaad qososho inaad xanaaqdo dareenka iyo emotionka qaybta loogu talagalay in ay maareyso oo process garayso way isbedeshaa adiga waalidkaas u galay idan ilmo waxaad korisay waalidow aan shucuurtooda maamuli karin
aan garan karin wax lagu farxo wax laga caroodo aan garan karin himilo aan yeelan karin number 2 prefrontal cortex qaybta la yiraahdo xaggan prefrontal cortex waxa la yiraahdaa waa qayb bahalkan almondaha la yiraahdo oo kale u yara eg tahay waa qaybta ugu muhiimsan maskaxda waxa la yiraahdaa the CEO of the brain waa hogaaminta maskaxda waalid waa qaybta qaabilsan u fiirso decision making go'aan qaadashada waa qaybta qaabilsan planning maxaan ku dhahaa qorsheynta jaangoynta waa qaybta qaabilsan self control in qofku isxakameyn karo qaybtii waxaasoo dhan qaabilsanayd ee qaabilsanayd go'aan qaadashadii qofka ee qaabilsanayd qorsheyntii qofka noloshiisa inuu jaangoyo oo qorsheeyo ee qaabilsanayd waxa la yiraahdaa self control qofku in uu waxyaabaha balwadda iska ilaalin karo xaraamta iska ilaalin karo caqliga isticmaali karo waxaa burburiyey waa toxic parenting waxaa buriyey waa tarbiyadda qaloocan waa waalidka ku sifaysan sifooyinkan soo sheegin u fiirsa marka ilmo waxaad soo saartay totally aad burburisay waxa aan ka hadlayo maandooriye ma aha fidna bannaanka ma aha waxaasoo dhan maaha adigii waalidka ahaa eed rabtay inay kuu duceeyaan eed rabtay markay ku xabaalaan inay dhahaan ilaahu u naxariiso hooyiya aabbo eed rabnay inay kuu soo cimraystaan ayaa sidaa u galay sidaa darteed toxic parenting waalidnimada sumaysan tarbiyadda qaloocan waalidka ka aradan naxariis jacayl la tashi ilmaha la sheekaysi ee quursanaya ee burburinaya ee hoos u dhigaya ee fadeexaynaya ee dadka ku agcaayaya ee qofka kale barbar dhigaya hiblaayo inankeeda kaa fiican hiblaayo gabadheeda kaa fiican waxaasoo dhan ilmahan waxaasaa ku soo baxa allaha awlaadeena badbaadiyo qaybaha dambe la soco janaalkan waxaa la yidhaha waalid legacy waalidkaa loogu talagalay allaha awlaadin annagana xifdiyo fadlan subscribe dhaha like dhaha sheer garaya walaalaha muslimiinta nala sheer garaya wasalaamu calaykum waraxmatullah